Waa sidee tartanka gooldhalinta Yurub xilli ciyaareedka? Waxa aan weli la qabsanaynaa in ayna Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo u tartamayn gooldhalinta Yurub sannadihii ugu dambeeye. Xilli ciyaareedkii hore Harry Kane waxa uu ku guulaystay kabta dahabka ah ee Yurub ee ugu horeysay, abaalmarinta la siiyo gooldhaliyaha ugu sareeya horyaalada Yurub, laakiin weeraryahanka Bayern Munich ayay shaqo adag u taalaa haddii uu doonayo in uu sii haysto abaalmarinta. Waxaa lagu jiraa xilli ciyaareed xiiso badan iyada oo xiddigo badan ku tartamayaan gooldhalinta Yurub. Xiddiga kooxda Barcelona ee Robert Lewandowski ayaa hogaaminaya gooldhalinta Yurub isaga oo 15 gool u dhaliyay kooxdiisa Barcelona horyaalka La Liga. Waxaa ku xiga xiddiga kooxda Bayern Munich ee Harry Kane kaas oo dhaliyay 14 gool horyaalka Bundesliga. Waxaa ku xiga xiddiga kooxda Atalanta ee Matteo Retegui kaas oo dhaliyay 12 gool horyaalka Talyaaniga. Robert Lewandowski 15 gool. Harry Kane 14 gool. Cumar Marmuush 13 gool. Matteo Retegui 12 gool. Erling Haaland 12 gool. Mohamed Salah 11 gool. Bradley Barcola 10 gool. Marcus Thuram 9 gool. Moise Kean 8 gool. Chris Wood 8 gool.